shirkadda la yiraahdo diyaaradda la oran jiray 737 Max waxaa la sheegay horta in ay jirid ahaanba ay u jiraneed salka ma asaaska diyaaradda nooca 737 ama modelka ah Max la yiraahdo ayaaba ahaa mid qarbudan ayaa la yiri sida lagu ogaaday warbixin ay soo saareen waaxda Congress-ka dalka Mareykanka u qaabilsan arrimaha gaadiidka arrintan ayaa waxay noqotay ribaaxo weyn iyo fadeexad weyn oo ku wada dhacday isku mar shirkadda Boeing gabi ahaanteed iyo waaxda dhinaca maamulka hawada ee dalka Mareykanka ee FAA loo yaqaan waxaana warbixinta ciwaan looga dhigay salka ama aasaaska ayay ka qaribneed diyaaraddu shirkaduna waxa kama qaban kaaga sii daranee FAA oo iyadu ah qaybta la yiraahdo Federal Aviation American Federal Aviation ayaduna waxba kama qaban ayaa waxay noqotay dhulgariir dhinaca warbixinta iyo waliba warshadaha dhinaca horumarinta diyaaradaha warbixintan ay soo saareen guddigu waxay ku tilmaameen in ay jirtay in kharadaadka iyo dhaqdhaqaaqa xun iyo waliba kharbadaada ka soo socota diyaaraddaas iyo suurtagalnimo in khasaare uu ka dhasho ay sheegeen qaar ka tirsan khubarada loogu talagalay inay inspection ku sameeyaan ama ay tafniidaan shirkadda diyaaradda ay sameysay kuwaas oo u gudbiyay xogta the Federal Aviation Administration FAA loo yaqaan hay'adda maamusha hawada ee dalka Mareykanka kadibna taraashka lagu daray qashka lagu daray waxaa la sheegay in ay taaso tahay baa saameyn shirkadda Boeing ay ku dhex leedahay hay'adda FAA ee iyadoo loogu talagalay in ay amniga dadka Mareykanka ilaaliso baa halka waxa ka cad in musuqmaasuqu adduunka meel walba uu gali karo ama mararka qaarkood aysan wadamada horumaray xitaa aysan ceeb ka saliim ahayn warbixinta ay guddiga gaadiidka u qaabilsan aqalka House Transportation Committee leeyahay ay soo saareen waxay yiraahdeen waxa cadaatay in dambiyadii dhacay ay wax ku leeyihiin shirkadda Boeing iyo waliba waxa la yiraahdaa hay'adda dhinaca badqabka ee Federal Aviation Administration ama maamulka hawada ee dalka Mareykanka taasoo khubaradii ka tirsanaa shirkaddaasi ay u shaqeynayay markii lagu amray inay tafniidaan oo ay indheeyaan oo itixaam ka sameeyaan ay ogaadeen in shirkaddan iyo diyaaraddan bay khatar weyn xambaarsan yihiin tan waxay ka dhigan tahay dhibaaxo kale oo Boeing loogu daray culayskii ka saarnaa Olbatas haatan waxaa lagu baaqayaa in gebi ahaanba meesha laga saaro Max oo ahayd mid ka mid ah diyaaradaha caalamka ugu dheereeya ee la soo saaray waxaa la sheegay in shirkaddu waxa kaliya xooga saartay oo ahaa speedka ama in ay diyaaraddu ay xoog u socoto maadaama ay diyaaradaha Mareykanku ay laba dhigaan dadka sida daraadeedna aan xoogaba la saarin maamulka dhinaca waxa loo yaqaan MCAS oo la sheegay inuu asagu awoodda kala wareegayo maamulka dhinaca wadaha diyaaradda taasoo aan uu sheegayo macluumaad khaldan bikaaciyaasha ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan ama khulaaq sheegayaasha ayaa waxay sheegayaan afcaal khaldan oo ay u tuurayaan taliska qaybta shirka ee looga taliyo diyaaradda isla markaana maamulka oo dhan iyo waliba xoogga dhinaca controlka oo dhan waxay ka luminayaan qofka diyaaradda markaasi maamulaya ama wada diyaaraduna iyada is wadasa hoos